salaamantiin dhammaantiin waxaan rajaynayaa inaad fiican tihiin mar labaad kusoo dhawaada videogan waa taa install gareynay web server annagoo commandiska weydiinayno ChatGPT marka waxaan rabnaa inaan hadda markaa horey usii soconno oo web serverka aan kor saarno websitekaas marka sidii aaba ku dhisnayno web serverka oo ahayd inaan commandiska ka qaadano ChatGPT ayaa website-kani commandiska lagu dhisay ka qaadanaynaa sheeg ChatGPT marka su'aasha ugu horeyso ay tahay horta inaan soo ogaano waxaa horta web serverkeeni haddaa videogii hore fiirsatay web serverka Ubuntu server ayaa ku kor dhisnay wuxuuna kor saaran yahay Proxmox virtual environment waana container marka IP addresskiisana wuxuu ahaa ifconfig oo kaasa IP addresski 172.16.240.134 markaas haddaa website-ka galno oo kaasa Ubuntu ahaa marka waa taa index file-ka ku darnay kelmaddan oo ahayd kani waa test marka index file-kaasna wuxuu yaalaa directory-gan sida ku ogaan kartid directory-ga ay joogto waxaa waa haddaa tiraahid print working directory pwd markaas wuxuu kuu sheegaa meesha aad taagan tahay oo file systemka aad kaga jirtid haddaa tiraahid ls-lrt wuxuu kuu sheegaa fileska meesha isaal marka waxaa yaalo index file-kan oo ah default html page-ka iyo php.info oo asagana ka warramayo php information page marka ChatGPT waxaa weydiinaynaa inuu website ku dul dhiso index file-kan oo uu na siiyo configuration complete ah oo beddelaya page-ka marka haddaa weydiino waxaan dhihi karnaa install website marka website-ka waxay doontaa iska noqon kartaa laakiin waxaan ku bilaabi karnaa website oo cyber security assessment ah oo qofka uu ku practice garayn karo macnaha 10 su'aalood oo bilow ah oo cyber security ah marka waxaan leenahay install website on Ubuntu LAMP with basic cyber security assessment questions. Make 10 questions and the grade after the quiz is complete. Place all config in index.html. marka kana uu qorayaa waa 10 multiple choice questions JavaScript based quiz display score after submission marka waa 10 su'aalood waa JavaScript logic markaasna natiijadii uu daabacayaa wuxuu dhanna wuxuu dhex gelinayaa file-kan oo ah index.html file-kaasna waa midkan oo web page-ka ugu horeeya marka waa kana wixii oo dhan so waxyaalaan update-ku sameynayaa laakiin already Linux-kan waa up to date laakiin waa update garayn karnaa haddana wakaasa wax kasta waa up to date marka kan ku xiga waxaa waaye create index.html java haysanaa marka index filekan uu leeyahay abuur
marka waa kana configuration kii complete ah oo asagii oo dhan indexiga ku dhex jiro. marka sidiisa ku koobiyeenaynaa marka actually inaaba delete gareeyaa roon markaasna abuuro file cusub maadaama uu kan jaa configuration leeyahay oo macnaha uu ku dhex jiro configuration kan oo Ubuntu web serverka default page. marka in la delete gareeyo file waxaa dhigi kartaa le rm index.html markaas ls hadaa trade oo kaama yaalo. soo haddana in la abuuro marka in la create gareeyo file cusub waa nano index.html markaas ku paste gareeyo wixii oo dhan. markaas marka haddaa fiirisay hadda page kan oo kaasa waa taa delete gareynay hadda php layaa ku yaala meesha. so marka save gareeyo marka midkan oo aan dhaho control x yes and then yes. so waa save gareeyo hadda marka haddaa ls dhaho kaasa index.html marka haddaa refresh dhaho hadda page kan oo kaa su'aalihii waa kuwaasa basic cyber security assessment. marka bal su'aalahan inaan ka jawaabi karno markaasna inuu saxaa fiirinayna oo markaasna natiijadana siiyo. what is the primary purpose of firewall maxaa laga rabaa? store data, inuu information hayo, block malware, inuu malware celiyo, filter network traffic inuu filter gareeyo, encrypt messages inuu message encrypt gareeyo. jawaabta saxda waxaa waaye filter network traffic. su-aasha labaad waxaa which is a strong password adag kee waaye? marka badanaa password adag waxaa waaye password oo leh xuruuf, calaamado iyo nambaro. markaas waa passwordkan waa ujeedaa p iyo w iyo rd waa xuruuf, calaamadana waa at iyo bang, nambaradana waxaa waaye 55 iyo 2025. so kana password adag ah. kuwa kale wax fudud waa password 1 2 3 waa iska fudud yahay, 1 2 3 4 5 6 7 8 waa iska fudud yahay, abcd efg waa iska fudud yahay. marka strong password waxaa waaye midkan. what does phishing mean? phishing maxaa laga wadaa? marka phishing waxaa waaye marka inta email sira laguu soo diro la rabo inaa information saxa inaa gelisid. waxaa laguu soo diraa email been ah laakiin information runaha lagaa rabaa in lagaa soo saaro. waa badanaa qofaa ku dhahaa shaqadan buuxi camal, markaas waxaa gelgelinaya magacaadoo run ah, adresskaadoo run ah. marka phishingkaasaa la yihahdaa. marka waa kuwaana jawaabaha. sending fake emails to steal data, in la diro email fake si data loo xado. what is a two-factor authentication? in macnaha hubsiino oo maaragtay laba hanaan ku imaanayso macnaheeda maxaa waaye? maxay tahay? waa using two passwords, laba password inuu qofka isticmaalo. taas ma aha, sababtoo ah laba password isku mid waaye, laba nooc oo kala duwan hubsiinada kuma imaanayso. using password and additional method, password iyo wax kale inaa isku dirtid midaan waaye ila tahay. laakiin jawaabaha kale aan fiirino biometric waxaa waaye inaa farta saarti meel ama isha lagaa saaro nal. logging from two device ama laba qalab oo kala duwan inaa kasoo geshid. marka ma aha, waa midaan waa using password and additional method. additional methodka wuxuu noqon karaa text lagu soo diraayo ama telephone lagu soo diraayo ama car aa meel ku taagaysid. https indicates, https waxaa laga wadaa marka hadda waa ujeedaaba website-kan aan saaranahay waa http soo maaha.
https waxaa waa iyadoo encrypted ah marka wakaasaa the site use encryption communication waa jawaabta wataasa. A VPN is used for VPN maxaa laga wadaa speed up the internet ma aha secure internet connection waa internet connection oo secure actually sidaas ma aha waa inaa internetka intaad dhex martid si encryption ay ku dhex martid adoo u socda meel kale VPN kaas waaye laakiin jawaabtana ugu dhow waa internet secure ah. Which one is a social engineering? Social engineering waxaa waaye in la farsameeyo hanaan social ah oo maaragtay qofka xog laga hayo la isticmaalo in lagu xado information marka taas DDoS ma aha brute force DDoS waxaa waaye marka information badan oo daad camal ah ku sii dayso website. Brute force waxaa marka passwordyo badan isku daydid. Phishing is social engineering because qofka markaas xog ka haysid emailkiisa haysaa waxaa u diray markaas email fake ah oo aad dhehayso shaqadan buuxso markaas xog run u gelinaya emailkaas marka phishing taas social engineering taas waa because si hanaan social ah u farsamayso qofkii maaragtay. Which port does HTTPS use? HTTPS muxuu isticmaalaa 443 80 waxaa waaye midaan caadiga oo HTTP aan secure ka ahayn. What's a malware? Malware maxaa laga wadaa software update, legitimate software, harmful software. Waa software wax dhibaya. Waa software laakiin waa software loogu talagalay inuu wax dhibo. What is the safest way to connect to public Wi-Fi? Sida ugu nabadgelyada badan oo public Wi-Fi loo isticmaalo see tahay waa using VPN. Marka submit dhahno marka hadda waxaa fiirinaynaa website-kii aan dhisnay annaga oo dhex taalo serverkan oo aan ku dhisnay videogii hore in hadda uu natiijadana siiyo intuu saxo wakaasa wana kaasa waa score 10 out of 10 okay marka waka ChatGPT aja waxay noo dhistay imtixaan yar soo ma jeedid marka waxyaalo kale taa ku dari karnaa waxaa dhihi karnaa after grading markuu saxo ka dambe inuu dhaho good job after grading if passing 100% say good job marka wakaa wuxuu soo ma jeed wuxuu leeyahay waxaa update garaysalay grade quiz qaybta javascript-ga ah update garay oo fileka ah laakiin wixii oo dhan filekii uu ku daray marka sidiisa ku koobiyeenina and then waa delete garaynayna index fileka rm index file markaas haddaa hadda refresh dhaho waa tagta website soo ma jeed because index fileka waa delete garay actually PHP gan waa iska remove garayna asaga xataa rm info.php so hadda waxa male waa meesha waa iska eber soo ma jeedid waxay taagan tahay lay directory-ga meeshu ka bilaabanay waan u jeedaa port 80 marka haddaan dhahno nano index.html markaasna ku paste garay ChatGPT waxaa ka soo qaaday markaasna save garay in la save garay marka waxaa waaye control x so control x save modified buffer yes file k index.html enter so hadda refresh dhaho su'aalihii uu ugu celinaa laba su'aalood kaliya ka dhigay okay marka submit hadda dhaho score 1 out of 10 uu bahleeyay wixii oo dhan gaa ku noqono new config shows only 2 questions and does not grade with complement. Sound like your updated quiz only showing 2 quiz, not grading. So corrected and complete waa kana wixii oo dhan wuu saxay index file-ka waa kana sidiisa ku koobiyey
ku noqo delete garee rm html haddana mar labaad abuur filekii sawirta refresh aa dhahnay markaas waa kaamalaha so nano index.html paste and then control x yes enter markaas refresh okay waa kuwana laakiin su-aalihii 6 su-aaloodoo haddana ka dhigay submit buttonkiina waa maqan yahay marka I think sida ugu fiican waxaa waaye sida ugu fiican waxaa waaye inaan ku noqono original filekii oo saxnaayo 10 su-aalood lahaa markaas rm index.html ano index.html and close yes enter okay submit hadda waa wataa soo submit haddaa dhaho soo hadda uu saxan yahay marka wuxuu nagu celiyey meeshii aan joognay laakiin wuu save gareeyey so haddaa kan intaa qaado aan dhaho add good job if tester gets all quiz correctly and reset reset after every submission. Good job message if you use this score is 10 out of 10 from research each submission. So this is copiano and rm index.html nano index.html paste control x yes, su'aalaha maqan soo ma jeedi wuxuu ku istaajiyey 8 xataa complete maaha su-aashaas soo wax baa ka maqnaa marka haddaa refresh hadda dhahno waa kuwaasa kulligu kusoo daray marka submit haddaa dhaho hadda hoka good job oo ku daray soo ma jeedid waxaan rajeynayaa marka inaad ka faa'iidaysatay videogan next videoga soo socdo waxaan dhan baa waxaa dhahaa af soomaali ku qor waxaan dhan marka su-aalahan kulligood inuu af soomaali ku qoro uu saxo uuna email kuu soo diro markaas marka laakiin waa inaad diyaariyo email accountiga uu isticmaalayo inuu ka diro emailka marka insha allah waa ismaqli doonaa